كفوغانشها كتابك الله يحسكيسا وأسباب تكنت عريرك أدونك مركا عاد عمل يرجك لك القرآن كريمك iyo marka aad Allah tala saarato subhanahu wa ta'ala waxaad ku jirtaa magangeliyada Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu ku yiri quraankiisa kariimka suuratu Taha aayada 2 ma anzalna alayka alqur'ana litashqa maanan dejinin nabi Allah korkaaga quraanka kariimka inaad ku dhibaatooto macnaha quraanka waa farxadda nolosha iyo ka fogaanshaha dhibaatada haddii aad ku xiran tahay quraanka alle waxaa tahay mid ku qanacsan qadarta alle adduunya aakhirana waad ku liibaanaysaa suuradda dhammaadkeeda aayadda 124 waxa uu ku leeyahay alla weyne ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ومعناه يهي روحي سكجيسد وكفقادا حسكيغا يعني قرآنك وحا أصبناذي نولو عريري وحا نسوكل مننا مالنت قيامه إساقو أرقلا فيري ولال وحا نهيسنا فريه أنقبت باذن لهي نفتينا waxaan nahay bini aadam uma adkaysan karno ciriiri adduun Allah subhanahu wa ta'ala naxariistiisa wuxuu na siiyay furihii aan kaga bixi lahayn ciriirigaas waana xuska alle iyo quraanka oo la barto laguna dhaqmo Allah kitaabka quraanka ka yeel mid quluubteena iyo laabteena lagu balaariyay fadlan haddii uu ku cajabgeliyo fiidiyogan gaarsii walaalkaaga khayrka aad naftaada la jeceshahay la jeclow والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.